kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bi khiyaarta wada nagala xidhiidha email kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena diirada ku saari doona wararkii ugu dambeeyay gabiyaanba naga soo gaara dalka Itoobiya qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamid ah khudbadii uu jeediyay Burhanu Julo oo saameyn ku yeelatay gabiyaanba shacabweynaha dalka Itoobiya isagoo ku faanay in ciidamadii ugu tirada badnaa ee quruntan Soomara ay leedahay dalka Itoobiya loona cabsanayna waa sidoo hadalka u dhigay taasoo loola jeeday in uu hanjabaad iyo fariin culus hawada u marinayo xogaga Faano oo inta badan gacanta ku dhigay deegaanka Amxaarada doonayana in ay uga sii gudbaan dhanka iyo magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya maxaad kala socotaa asxaabta deegaanka mucaaradka iyo waliba madaxweyne Mustafa oo ay ka dhex qaraxday kadib markii shir loogu talagalay aqoon-yahanka guud ee dowladda deegaanka Soomaalida laga qaban qaabiyo kaasi oo ka dhici doona dalka Mareykanka waxuna walaa xoogan iyo waliba uu ku riday madaxweynaha iyo waliba dowladiisa si gabal dhacsanaysa ee aad moodo in ay gabiyahanba dadka shacabka ee dowladda deegaanka ay ka hor yimaadeen haddaba wuxuu madaxweyne Mustafa ka abaabulayaa Minneapolis isagoo lacag malaayiin bir ku bixinaya sidii shirkaasi loo fadqalalayn lahaa waxa kaloo daawadayaal socda in xisbiga FEB afhayeenkiisii xabsiga loo taxaabay kaasi oo loo saarinayo in qalalaasi dhawaan ka dhacay magaalada Jigjiga lana doonayay in gabiyahanba looga saaro kooxaha buuraleyda ka soo dhaadhacay uu ka dambeeyo xisbiga FEB iyo waliba asxaabta kale mucaaradka ee dowladda deegaanka Soomaalida haddaba xaaladan oo ah xaalad khatar ku ah dadka mucaaradka ee ka soo horjeeda xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa ayaan sidoo kale ku qaada dhigi doona dhanka kale todoba magaalo ayay qabsadeen xogaga mucaaradka wararkii ugu dambeeyay waa deegaanka Amxaarada waa nimanka lagu magacaabo Faano ee dowladda ayaana walaac xogan ka muujinaysa haddaba qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal ku qaada dhigi doona barnaamijka waxay igala qayb qaadan doona Shide waa kabtan Shide oo inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay dalka Itoobiya Shide barnaamijkeena waan bilaaban doonaa saaxiibada waxaan ka codsanaynaa in ay share gareeyaan like saaraan oo ay subscribe saaraan si uu meel fog u gaaro maadaama soo gudbinayno warar tafatiran oo ku saabsan dalka Itoobiya Shide marka hore soo dhawow waan dhawaay saaxiibe ninka maxaa kaaga baxay aad iyo aad baad u dhageysanaysa khudbadii uu jeediyay ninka lagu magacaabo Burhanu Julo waxa uu sheegay in Mililiq iyo Mingiste iyo Tiber wixii odil markii la sugeeyay IBRF nimankii loo jiray TPLF wadanka xukuumad inay ka ciidan badan yihiin maanta Itoobiya aan loo baqayn hadalka maxaa kaaga baxay aad iyo aad u mahadsan tahay Farogodow ninkii Burhanu Julo ama taliyaha guud ee militariga Itoobiya jeef iyo joog buu qaban layahay saacad buu TV-ga iyo warbaahinta oo la hadlaya asagoo mooday inuu Abiy Ahmed gadaal ka taagan yahay oo sariirta ka kicinaya markasta uu leeyahay dadka wax u sheeg bal wax uun mucaaradka ay ka naxan sheeg dagaalka ayaa si cuslaaday qayla dhaantan iyo maartay ay warbaahin la hadalkan badan Israakiisha dawladda ay sida talantaaliska ay warbaahinta oo la hadlayeen waxa keenay culayska ka imanaya xogaga Faana iyo dagaalkii oo soo rogaal celiyay iyo xogagan oo gacanta ku dhigay hub culus oo ay dawladdu leedahay ayagoo ku dhawaaqay inay xataa diyaaradaha hayaan has yeeshee uu taliyuhu ugu baaqay diyaaradaha ay hayaan inay soo bandhigaan hawadana la isku cuni doona anaguna kuwa nagaan kicin doona ayaguna soo kicin doona hawadana isku duban doona wuxuu ka codsaday Faano in diyaaradaha ay sheegeen ay soo bandhigaan oo dadka Itoobiyaanka u wadaagaan marka shidahu waxay ka dhigan tahay Faano taangiye iyo hub la sugu faana ka tagta diyaaradaba loo yaab lagu faanaya wax lagu faanay waa diyaaradaha waan duqeynka raaca waan gubaynaa waay marka asagu wuxuu leeyahay diyaaradaha ay sheegteen waxaan ka codsanaynaa inay soo bandhigaan si aan u ogaano inay diyaaradaha Itoobiya qayb ka mid haystaan asaguna beenaya marka wuxuu wax diyaarado gacantooda gashay ma jiro laakiin Faano way ku dhawaaqeen inay diyaaradana hayaan hub culusna ay haystaan dagaalkana ay sida ugu dhaqsaha badan ay soo gabagabeynayaan waxay ugu yeedheen rejiimka Dr. Abiy Ahmed in ay jaminayaan marka qayla dhaantan istaba jooga ee sabab ka imanaysa waa cabsi ka timid dagaalka waa guulaha mucaaradka soo kordhay waa shacabkii oo dhabarka u jeediyay dawladda Abiy Ahmed waa dawladda Abiy Ahmed oo wax taageero aan ka helin shacabkii waa dagaalka sidii la moodayo uu noqon waayay waa Axmaarada oo hal meel ka soo wada jeesatay marka qoomiyadii Oromada iyo qoomiyadii Axmaarada ee la dagaalku u dhaxeeya dagaalku sidii la moodayo uu noqon waayay qoomiyadii Oromadu dagaalka markii hore waxa la islahaa Oromiya Axmaar ay noqon tira ahaan bal isku cayuumin مليون ماليشيات هو رملة دجال كلا جرين ضبط عركوس كل شيء أحمر ولا وايد ولا ما رزلا لكن قوميد ورمضان واحد مدينة واحد بدن حيرسي ودجال كجاب ستي قوميد ورمضان وسيد لزلا دجال كان ويدفع دون أبي أحمد مين ودفعن ورمضان يجمع عشان الجوجة برهان جولة وحوش شيء إنه وير الكوكا هذا قبل كورمضان دلين
ciidamo aad u tiraban oo leh oo jamhadda xoreynta Oromiya oo ku sheegeen in shacabkii Oromada hor istaagtay inay dagaalka qayb ka noqdaan oo shacabku u afduuban yahay oo shacabkan ka soo fakinayna buu leeyahay marka dagaalkii Burhanu iyo Abiy Ahmed bas ayuu ku egyahay dagaalka hadda faana iyo ka socda gobolka Axmaarada waxa waaye Abiy iyo Burhanu Juula oo dabaqoodigoodii iyo kuwii ay ku shaqaysanayeen iyo kuwii maskaxda ka haysteen ka haysanaya iyo qoomiyadda Axmaarada ayaa dagaalamaya faano Oromo laba dagaalaysa la yiri Oromo Abiy bay dagaal kula jirtaa marka nimankan qaylada waxa ka keenay waa cabsida iyo dagaalkii si lama filaan ku soo rogaal celiyay iyo dawladda khalkhal siyaasadeed wajahaysa Eritrea oo soo caburisay oo hubkeeda casriyeed macaarad soo dhiibtay ciidanka dawladda oo guul darro weyn dagaalkii kala kulmay marka nimankan qaylada waxa ka keenay waa xanuunka meesha ka jira waa marka maadaama dagaalkii uu soo noqday Burhanu Juula waa inuu saacad kasta soo fadhiisto halka la marayo uu sheegay dagaal oo waliba faano ma ahayd waa inuu moraalka u dhisay ra'iisul wasaaraha ila ra'iisul wasaaraha soo fadhiisto dagaalku culus yahay in meesha uu kala tagay cadeynaysa laakiin waa inuu Burhanu hadlo Burhanu وأنا حسوقي تكري وأنا كي مالك دجال كلا قاعدة تي جنن كي عيدن كهستي حل كلا جفر سواقي تكري لو ورلي إن أحمرها يا عيدن ملتري هستي وأنا كي تكري جاي ملتري أفجم كي انقلاب كي لجود دلي إلا الدلي نينكي لجود بدل إن أحمرها نينكي أحمر ك مرك دجال ك لجود قاعدة تكري وسكو أمينه واي وحكا بقى ينتو هوب كرتان وقعنت وقرأ وتكري وصاح سوق إنه ده أتسبب سؤال وأتسبب لجود انقلاب يحكا بقى حقودي بي برهان جولو دي بي تليها قيبته الجلينتن وحوا باجر أبلو أقدر كي نمان أذو أورمو سودا بدي ماشي وصلنا سوقلي مركن نيجي أبي حد كوا كرنته حد أحمر الدب كله جوري أسأل كسور جدا تكره الشيء وكوا أولى ما أنت ما سودك مقالة بريمان كسودك بلاني قبتها ضيا وراقص درجو دريا تكره روح على السوق رباط كلا جينا يا الحبايان يا سي ماموس للجوس دوين لكن الصنبة لوزر وينيا وكاس قرشة ماشى كسر تدوّد المجال هذا بروباهين تيتوبي أي قريسو إن أي جعنتا أي كل جين ودجال حوجنا يكسعودان أنت بدنا أي قبسدين تدوّد المجال محكمة ده لالبيلا يو مجال ده لبرا تابور يو لبرا مرقص يو كوجم iyo jubba deegaano badan oo magaalooyin weyn oo noocaas magaalooyin istiraatiijiga faarag gabi ahaan bagacanta ay ugu dhigtay dhammaan maamul bay sameysay gobolka markii dhowr magaalo laga reebo inta kale dhan gacanta ay u galeen faano maamul waxayna u sameeyeen ku meel gaar oo ku sheegeen markii ay baxardaari meelkasi ay sabab qabsadaan inay gobolkan doorasho cadaalad ka dhawaato qofka ay rabaan ay dooranayaan shacabka Axmaaraduna ay u heliyeen dagaalkan dawladdu maalmo hore waxay ku taamaysay inay tiri usbuuc gudihiin أبي أحمد 14 days وقت قال كنا بالبوق على هذا 14 days نقص أفتري يا موت ولنا بحرداري قلنا لما دافن هل كاس الجودون وياه عيدا كسيدا بصد دي بالوصل دادية واحد درت الهواء الوصل دادية ما فهمت ديارة وصل دادية مركب عيدا هل كاس كوبي حل صوت دادية كود دان مركب ويكلا بابا نوم والبابا جرادة إياه باكده بسكت كي عنده وقش أيوة عنا ما فهمت